maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ayaa sheegtay in ay maanta soo gabagabeyn doonto dhageysiga kiiska dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kadib dhageysigii maanta ay u gudagali doonaan gaarista go'aankii kiiskan isla markaana ay xukumi doonto. inkastoo aysan shaacin waqtiga rasmiga ah, Soomaaliya ayaa maxkamadda u gudbisay dood afeedkeeda 15 ilaa 16 Maaj, mana dhicin wax dhageysi ah 17 Maaj kadib markii Kenya ay diiday inay ka qayb gasho dooda afka ah ee maxkamadda ka socota. Sidaas darteed ayay tiri maxkamadda Soomaaliya ayaa maanta u soo gudbin doonto doodeeda ugu dambaysa saacadda magaalada Hague marka ay tahay 9 galabnimo, taasoo ku beegan 11 xilliga Muqdisho. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ ayaa shalay ku gacan saartay codsi kaga yimid Kenya oo ahaa in dib loogu laabto dhageysiga dacwadda oo ay qaadacday 11 bishan sida ay sheegeen guddiga matalaya Soomaaliya. Go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay ku diideen codsigii Kenya. Fursad weynna waxa ay u tahay ama u leedahay Soomaaliya iyo qareenadeeda matalaya, sababtoo ah Kenya ma haysato fursad ay isku sii difaacdo. Madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida ku timid madaxweynihii dalka Tansaaniya oo xalay xanuun dhanka wadnaha ah ugu geeriyooday magaalada Daarusalaam ee caasimadda dalkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu si gaar ah ugu tacsiyeynayo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Marwo Suluhu Simiya iyo marwadii uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Tansaaniya, sida ay daabacday warbaahinta dawladda. Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dawladda iyo kan qaranka Soomaaliyeed, waxaan jecelahay in aan tacsi tiiraanyada u diro Jamhuuriyadda Midowday ee Tansaaniya geeridii ku timid madaxweynahooda, ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Madaxweynaha dalka madaxweynihii hore ee Tansaaniya ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Daarusalaam. Madaxweyne ku-xigeenka dalkaas ayaa xaqiijiyay geerida madaxweynaha xilli ay tibin toosa warbaahinta qaranka ee dalkaasi uga jirtay. Madaxweyne ku-xigeenka waxay sheegtay in uu wadnaha ka xanuunsanayay madaxweynaha dalkaasi una dhintay Arbacadii saacadu markay ahayd 6 maqribnimo. Waxa ayna intaasi ku dartay in madaxweynuhu ku geeriyooday cisbitaalka Manzena ee ku yaala caasimadda ganacsiga ee Daarusalaam, isagoo xaalad caafimaad darro cisbitaalkaasi loo dhigay ay haysatay 10 sano ee ugu dambeysay. Madaxweynaha ayaa xanuunsaday 14 Maaj kadibna waxaa la dhigay cisbitaal uu haatan ku geeriyooday iyadoo da'diisu ay ahayd 61 sano jir. Ugu yaraan 1300 oo ciidan ayaa waxa ay iska xadiriyeen xarunta tababarka taageerada nabadda ee Singo si ay tababar u qaataan ka hor intaan loo dirin bisha Oktoobar Soomaaliya. Uganda waxay qorsheynaysaa inay u dirto 2752 kayd ah oo ka socda UPDF, kuwaasoo loo maleynayo in ay dhisi doonaan kooxaha loo yaqaan Battle Group 34 iyo 35 si loo geeyo inta u dhaxaysa Oktoobar sanadkan ilaa bartamaha sanadka soo socda Soomaaliya. UPDF waxa ay dib ugu yeertay ciidanka keedka bishii Janaayo iyada oo loo marinayo xafiiska taliyaha ciidanka kaydka ee la yiraahdo TL General James Away Atota. Ku-xigeenka afayeenka ciidamada LT Cornel Dio Akiki oo loo soo xulo ciidamo dheeraad ah si loogu diro howlgalka Amazon. Kooxda loo yaqaan Battle Group 34 ayaa bedeli doona kuwii hore ugu sii shaqayn jiray Soomaaliya ee loo yaqaan Battle Group 30 oo la geynayo bisha December ee sanadkii hore. Waxay ka maqnaan doonaan tababarka bisha Oktoobar waxayna diyaar u yihiin in la geeyo Soomaaliya, ayuu yiri Cornel Akiki.